waa kuwee shanta ciyaartoy ee muddadii ugu dhaqsaha badnayd 5 gool ku dhaliyay hal kulan gudaheeda. ciyaartoyga ugu dhaqsaha badnaa ama muddadii ugu yareyd 5 gool ku dhaliya hal match gudaheeda waxa uu ahaa ciyaartoyga Robert Lewandowski oo ciyaari jiray kooxda Bayern, kaasoo sanadii 2015 kooxda Wolfsburg 5 gool kaga dhaliyay 9 daqiiqo gudaheeda. ciyaartoyga labaad ayaa ciyaartoyga Kun Aguero oo 5 gool ka dhaliyay sanadii 2015 kooxda Newcastle United, xilligaas oo ciyaartoygu uu awooday inuu kooxda Newcastle United 5 gool kaga dhaliyo hal match gudaheeda muddo gaaraysa 20 daqiiqo. ciyaartoyga saddexaad ayaa waxa uu yahay ciyaartoyga hore u ciyaari jiray kooxda Tottenham ee Dovio, kaasoo sanadii 2009 5 gool kaga dhaliyay kooxda Wigan Athletic 36 daqiiqo gudaheeda. halka ciyaartoyga afraad uu yahay ciyaartoygii hore ee xulka qaranka Jarmalka iyo sidoo kale kooxda Lazio ee Miroslav Klose, kaasoo kooxda Bologna kaga dhaliyay sanadii 2013 5 gool hal match gudaheeda, xilligaas oo ay ku qaadatay ciyaartoygan inuu 5 gool ka dhaliyo kooxda